Bismillahirrahmanirrahiim. Assalaamu calaykum. Luuqadda jirku waxay muujin kartaa wax badan oo ku saabsan qofka, waxayna tilmaami kartaa inuu dalan yahay, faraxsan yahay ama uu waxyaabo badan dareemayo. Laakiin dhammaan dhaqdhaqaaqyada jireed ma fududa in la akhriyo, waxaana jira calaamado badan oo laga yaabo inaanad xitaa weligaa ogaan karin. Dhammaanteen waxaynu leenahay habab inoo gaar ah oo aynu u fadhiisanno. inaynu qaab gooni ah u fadhiisanaa waa caado shakhsi ahaan qofka u gaar ah oo uu ku dareemayo nafis ama uu jecel yahay inuu u fadhiisto markasta. Laakiin ma ogtahay in sida aad u fadhiisataa ay wax badan ka sheegayso adiga shakhsiyadaada? Haddaba barnaamijkeennan caawa waxaynu ku soo bandhigaynaa 5 nooc oo fadhiga ka mid ah iyo waxyaabaha ay muujinayaan, waxaana barnaamijka idiin soo gudbinaysa anigoo hayeen Jaamac Nuux. ku soo dhawaada. Fadhiga nooca dadka sidan u fadhiista waa dad hal abuur iyo soo jiidasho leh, noloshu way ku faraxsan yihiin oo inta badan lagama yaabo in lagu arko wax yar oo caajis ah. Dabeecadooda fududi waxay u sahashaa inay yihiin qaar mushaakilkooda xalliya oo aan cidina dareemin xaalkooda. Inta badan waxa lagu tilmaamaa dad qalqaaliyiin ah ama fudud, waxaanay u muuqdaan dad aan hadalka ka fiirsan intaanay odhan ka hor. taasna waxa uu sabab ah inay yihiin dad degdeg badan. Sidoo kale dadkani waa dad aad u hadal cad oo dhiiran oo lagu tilmaamo inay yihiin dad fariid ah. Fadhiga nooca B, dadka noocan u fadhiista waa dad jecel inay ka dhabeeyaan riyadooda, waxaana inta badan waqti ku lumiyaan inay ka fakaraan wax cusub sidii ay u soo kordhin lahaayeen. waa dad aad u asxaab jecel oo markasta jecel inay tiim samaystaan dhanka shaqada ama nolosha caadiga ah. Sidoo kale waa dad naxariis badan oo dhibka qofka kala haysta iyagana uu saameyn ku yeesho. Dadkani waxay aad u jecel yihiin dalxiiska, safarada badan, waxaana u sahlan inay markasta dad cusub bartaan. Inta badan dadkani haddii ay fikrad cusub ku soo dhacdo waxay jecel yihiin inay ficil u bedelaan. sidoo kale dadkani waa dad nacab inay nolosha wax kaliya qabtaan, sida inay meel ka shaqeeyaan muddo badan, inay hal gaari ah wataan waqti dheer, iyo inay xidhiidh jacayl wadaan muddo badan. waxay jecel yihiin inay markasta wax cusub tijaabiyaan, xitaa waa dad jecel inaanay magaalo qura deganaanin oo xiiseeya inay deegaanka bedelaan. Fadhiga nooca C, dadkan way ku adag tahay inay fadhiistaan, waayo waa dad aad u jecel inay markasta wax qabtaan oo fadhiga nacab marka laga reebo inay u arkaan mid macquul ah. Sidoo kale dadkani waa dad jecel shaqada oo aan agtooda caajis iyo jiif loogu iman, waana dad aad u firfircoon. Dadka noocan ah waxa u badan dadka injineerada ah oo waa dad fikirka qaab dhismeedka aad ugu wanaagsan. sidoo kale dadkani waxay yaqaanaan xilliga la nasto iyo xilliga la shaqeeyo, waana dad ku wanaagsan inay naftooda u sameeyaan qaab qorsheed iyo qaab nololeed, waana dad aad ugu fiican ballanka. Fadhiga nooca D, dadka sidan u fadhiista waa kuwa caqli badan, waqtiga ilaaliya oo si fiican ula dhaqma dadka ku xeeran. waxay jecel yihiin inaanay cidna garab weydiisan, waana dad aad isu ilaaliya oo aan dadka kale ku dhex milmin, waxaanay xiiseeyaan wax kasta inay keligood qabsadaan. sidoo kale waa dad aad u karti badan, waa dad aad isugu kalsoon, waana dad intooda badan ay u fududahay inay ka hadlaan meel fagaare ah oo aan marnaba ka baqin inay dad badan wax u sheegaan. dadkani waa dad aamusan oo aan ku fiicnayn inay dad cusub bartaan, oo aad bay ugu adag tahay siday qof ku bartaan ama xiriir ku samaystaan. Fadhiga nooca E, dadkani waxay inta badan diiradda saaraan xirfadooda, waxaanay leeyihiin ujeeddo cad oo nolosha ah. iyagu kuma degdegaan inay qoys yeeshaan, laakiin waxay door bidaan inay marka hore gaadhaan hadafyo kale oo noloshooda ah. waxay leeyihiin ujeeddo cad, waxayna aad ugu dadaalaan oo waqti badan geliyaan sidii ay guul u gaari lahaayeen. waana sababta aanay u danayn inay qoys samaystaan ama ay waqti siiyaan sidii ay xiriir ku samaysan lahaayeen. inta badanna waxaa lagu tilmaamaa inay yihiin dad danaystayaal ah oo aanay waxba xiise gelin. ugu dambeyntiina la wadaag qaabka aad u fadhiisato ama nooca fadhigaagu yahay. aad baa u mahadsantihiin. Wassalaamu calaykum.